السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuuganimadu waa shaqo dad badan ay caadaysteen inay ku shaqaystaan. Haba iska xumaatee waxay u baahan tahay xirfad iyo xeelad aad wax ku xadi karto ama wax ku dhici. Soomaaliduna waxay tiraahdaa tuugu intuu baayaa badan. Maanta waxaan idin la wadaagi doonaa 7 tuug oo sameeyay ficilo qariib ah oo sabab u noqday in gacanta lagu dhigo xatooyadoodii ama dhacoodii uu fashil ku soo dhamaado. Haddii ay tahay markii ku horreysay soo boqoto halkan waxaan ku leeyahay soo dhawow muuqaalkan like garee siina share garee la wadaaga asxaabtaada daawasho wacan. Sanadkii 1995 ninka lagu magacaabo Klaus Schmidt ayaa waxa uu go'aansaday inuu dhaco bangi ku yaala magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Ninkan waxa uu ku hubaysnaa baastoolad markii uu soo galay bangigii ayuu baastooladii la soo baxay si uu dadka u cabsi geliyo ama shaqaalaha u cabsi geliyo. Wuxuuna weydiistay lacag kadib mid kamid ah shaqaalihii ayaa waxa uu su'aalay ma boorsa rabtaa macnihii ma boorsan lacagta kugu gurna. Ninkii Schmidt ahaa waxa uu la soo booday isagoo qaylinaya war miyaa waalan tahay waxani waa baastoolad ayaa ku weydiiba hadalkiiba meel aan loo wadin gulla aaday isla markiiba shaqaalihii waxay ogaadeen in ninkani uu dhagala yahay macnihii dhagala dam ma aha uu dhaga culus yahay mid kamid ah shaqaalihii ayaa taabtay alarmigii laakiin ninkani leeyahay waxba kale ogaa waxba ku sii qaylinaya anigu waxaan dilaa tababaran iska ka ilaaliya walaa waxay geysiya isla judhiiba waxa meesha ugu yimi booliskii waana la xidhay laakiin kiiskaas halkaa kuma dhamaan ninkii waxa uu maxkamad la koray bangigii oo ugu dacweeyay oo leeyahay waxay kaga faa'iideysteen dhagalaantayda bal ninka ka warna adigu ninkan oo lagu magacaabo Charles Merriweather oo 18 sano jir ah yani 18 sano jir ama qof weyn ba maaha waxa uu dhacay guri haweeney shaqaale dawladeed ay leedahay waxa uu weydiistay lacag in ay siiso waxa ay lacag gacanta markaa ku hayso nasiib darro lacagta haweeneydu gacanta ku hayso waxay ahayd $12 oo kaliya wayna u sheegtay taa kaliya ayaan haya waxa uu weydiiyay sidee ku bixisaa biilasha yaryar hadda lacag intan haysatid waxay ugu jawaabtay waxaan ku bixiyaa check ahaan baan ku bixiyaa ma sidaas check laftirkiisa bay qor $30 oo check ay qor may konton iga dhig waxay ugu jawaabtay waa yihiin ilan check xog baa lagu qoray magacaaga sheeg oo u sheegay jeegi bay ku qortay sidii uu ku qaad markii uu sida guriga uga baxay waxay la socodsiisay booliskiina waxay dabagal ku sameeyeen jeegi saacado kooban ka bacdi inkii gacanta lagu soo meelaha la dhacaya kala daran 22 jirkan oo magaciisu yahay Derek Mosley oo ku hubaysan mindi iyo usha baseball labada cabir hadda ayaa damcay inuu dhaco dukaan lagu iibiyo hubka dukaankan waxa lagu iibiyo hubka dala soo markii uu soo galay waxa uu ku bilaabay ushii dhaladii display-ga ahayd ee lagu soo bandhigay hubka si uu baastoolad uga baxo leen ninka dukaanka haysta faraha barro kuma haystee waana nin hub iibinayay waxa uu madaxa ka saaray baastoolad oo isagii baa lagu amray inuu wax u haystana dhulka dhigo beerkana dhulka dhigo wax dhacbu islahaayeen waxa ku dhacay halkii isagoo jiifa ay boolisku ugu yimaadeen odaygii Mosley inta kadib waxa loo taxaabay tugada kala maskax badan ninkan oo lagu magacaabo Ashley Kist oo 25 sano jir ah waxa uu guri ka xaday telefoon inta uusan guriga ka bixin isla telefoonka uu xaday ayuu wax iskaga qaaday sawir gurigii uu ka xaday dhexdiisa kadibna waxa uu ku share gareeyay WhatsApp laadba waxa arkay mid kamid ah asxaabta qofkii telefoonka laga xaday kadib booliska ayay la wadaageen odaygii Kist ahaa soo gurigiisa dhex jiifa ayaa la soo waxa kale oo ninkan tuug waxyaabo badan oo kala xadi jiray gurigiisa sidoo kale waxa laga soo helay waxyaabo kale oo xaday waa kamid tahay saacad Rolex oo qiimaheedu dhan yahay 4000 oo pound kan waxaan soo dhan karaa waa kii ugu caqliga yaraa sanadkii 2008 xariifkan lagu magacaabo Rubens Radi oo 18 sano jir oo ku hubaysan baastoolad ayaa waxa uu damcay inuu dhaco dukaan lagu iibiyo qalabka gawaadhida ku yaala Chicago dalka Mareykanka kadib wuxuu dukaanka weydiistay lacag laakiin waxa loo sheegay in dhib jiro dhibkaas oo ah in lacagta ku xidhan tahay kaydka lacag uuna furi karo kaliya maamulaha dukaanka oo haddana ka maqan yahay dukaanka waxa uu damcay inuu hadda iska tago oo mar kale soo laabto si uu dhaco haddaba si uu ogaado in maamulihii yimaaday uusan meesha ku soo logayn waxa uu sameeyay waxyaab ku noqotay shaqaalihii dukaanka intuu warqad ku qoray numberkiisa ayaa uu yiri soo waca marka maamulihii yimaado si aan idin dhaco wana ka tagay ugu horeyntii shaqaaley waxay waceen booliska kadibna isagii bay waceen oo u sheegeen in maamulihii yimaado ugu jawaabay way fiican tahay inaad soo wacdaan haddii kale dhammaantiin waa idin layn lahaa laakiin dukaankii marka uu yimi uu soo galay waxa uu arkeen meesha boolis joogo kadib booliskii waxbad ku bilaabay lug baa laga dhaawacay kabacdi sidii baa gacanta loogu dhigay jeelkana loo dhaadhicay tuugan isaga magaciisa ma hayo laakiin waxa uu sameeyay baa ah wax la yaab ninkan oo wata baastoolad iyo boorso ayaa waxa uu soo galay bangi ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska si uu u dhaco markii uu bangiga soo galay waxa uu weydiistay shaqaalihii lacag haddaba waxa uu siiri u dhiib boorsada si uu lacag ugu shubo halkii uu uga dhiibi lahaa boorsada waxa uu dhiibay ninkii baastooladiisii ilbiriqsiga kadib waxa uu ogaaday in uu khalad sameeyay halkan ninkii shaqaalaha yaabi ama kaag uu ku maqan yahay kadib ninkii tuuga ahaa waxa uu damcay inuu baastoolada ka dafo ninkii shaqaalaha laakiin ninkii shaqaalaha uu ku fahmay baastooladiina isagii uu ku qabtay ilaa nafta orod bay ku go'aamintay odaygii orod buu isku taabtay isagoo hore u sii qaatay baaskiil uu lahaa mid kamid ah shaqaalaha bangi waxa laga yaabaa in uu yahay dhiciisi ugu horreeyay oo uu sameeyo noloshiisa tuug wax dhaca oo carara waa la arki jiray laakiin tuug intuu ku dhaco haddana gurigaaga seexanaya abid lama arag ninkan oo lagu magacaabo Mark Smith waxa uu jabiyay guri ay lahayd haweeneydan guriga markaa way joogtay dharbeena feeraysanaysa ninkan guriga xagga kale usna ka shaqaysanay waxa uu soo qaatay oo gacanta ku dhigay boorso dahab iyo buuga jeega lagu qoro ninkan intuusan guriga soo galin ka hor waxa uu iska badiyay khamri iyo cabitaan busoocab markii uu wuxuu urursan karayay urursaday ayaa waxa uu arkay sariir halkan oo iska diyaarsan kadibna uu iska seexday sariir hadda gurigii wax ka xaday way kadib haweeneydii markii ay dharkii ka soo kacday oo istirqolka
gal baa waxay aragtay sariirteedii intaysa qolka soo galeen albaabka furan lugo sariirteedii yani ka muuqanaya haweeney guriga iska lahayd qeyle ku dhufatay laakiinse ma uusan dareemin oo waa qof maqanba kadib waxay wacday booliiska u sheegtay ninkan hurda gurigeeda aysan garanayn booliiska ugu yimaadeen meeshii kadibna way arkeen inuu weli hurdo maysan toosin markuu kacay ka bacdi waxay u taxaabeen jeel muuqaalkeena maanta intaas ku saabsan yahay waxaan ku weydiin lahaa dabada tuugaa soo aragtay keebaa kuugu la yaab badnaa qaybta commentka insha Allah noogu reeb lana sii wadaaga asxaabtaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.